kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta oo aad nagala socotaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad. maanta waa talaado, taariikhduna waxay ku beegan tahay 4 bisha Agoosto sanadka 2026. haddaba barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnay. haddaba waxaa noo soo socda warar muhiima oo ku saabsan xuutiga oo daakum ka dhigay Saudi Arabia, laakiin markan waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu waaweynaa ee xaaladda marinbiyoodka Hormuz. sida aad la socotaan, marinbiyoodka Hormuz saakay ilaa maantay dhoon waxaa ka taagan xiisad kadib markii saakay la sheegay markab inay Iiraan ku qararamsatay marinbiyoodka Hormuz. haddaba maxaa ka soo kordhay marka intaynu kala maqnayn sheekada Hormuz? haddaba aan marka hore ku bilaabo, telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio inuu markaa rajo weyn ka qabo in heshiis laga gaari doono marinbiyoodka Hormuz. Marco Rubio wuxuu sheegay in heshiis laga gaari doono weliba sida ugu dhaqsiyaha badan oo ugu degdegsan arrinta marinbiyoodka Hormuz. horumar ayaa laga gaaray wadahadallo na dhex maray annaga iyo Iiraan si loo soo celiyo inuu shaqeeyo oo la furo marinbiyoodka Hormuz ayuu yidhi. ninkan wuxuu leeyahay sida ugu dhaqsaha badanaa loo furi doonaa, isagu waqti ma sheegin. ogaada, waa wasiiru khaarijiyaha Mareykanka, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka waayo. wuxuu leeyahay wadahadaladii noo socday annaga iyo Mareykanka meel fiican noo maraya, natiija la gaaray. Iiraan waxay leedahay wax wada hadal oo nimankan aan kula jirna male. war bilaahi calaykum, Iiraan kale ma jirtay taagiin waa la wareeray meeshaan. marka nin khabiira maanta warkiisaan aniga aan aad maaragtay ugu bogay. waxaa wareysanayay telefishinka Al Jazeera almuhandis, waxaa la yidhahdaa almuhandis Maahir Cabdilxamiid aa la yidhahdaa. waa nin injineera oo Masar u dhashay oo la wareysanayay oo khabiira oo dhankan arrimaha siyaasadda caalamka laga wareysanayay. waxaa la yidhaha adduunyadu waxay ku wareertay. Mareykanka wuxuu leeyahay waxaa noo socda wadahadal. kow, Iiraan waxay leedahay war wax wadahadalla ma jiraan, ma laba Iiraanaa jirtay taaganta ee sidee waxu jiraan. wuxuu yidhi labaa ku fasiri karnaa. in wadahadalka uusan toos ahayn oo meel dadban uu ku jiro oo qolo kale ay la wado Iiraan waa dhici kartaa oo Mareykanku kaas xisaabsanayo. waxaa kaloo dhici karta inaanay waxba ka jirin wadahadalka oo Trump iyo kooxdiisu sababta ay wadahadalaa socdaa u leeyihiin inay rabaan qiimaha shidaalka iyo badeecadaha adduunka inay halkooda ku hayaan. haddii la yidhaha wax wadahadaloo socda male, xaalku waa baraka mala, way ku sii darayaan, waa la sii qaaliyeynayaa. marka inuu Trump mar walba been sheego wuxuu qaldayaa lagu leeyahay ra'yul caamka. ninkan hadduu dagaal ku baaqo shidaalku wuu kacayaa, nabadaas socota haddii la yidhaha shidaalku waxoogaa wuu degayaa. marka nimankaasay nimankan la xariiftamayaanaa lagu leeyahay. adduunka wax kasta waa arkaynaa, waa baranaynaa. waayahay, marka ninkii hadda aan soo qaadanay wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mareykanka, wasiirul kharasana nin la yidhaha jira. marka wasiirka arrimaha maaliyadda oo kale u qaabilsan Mareykanka, isaguna wuxuu leeyahay maalinuu tilmaamaa, wuxuu leeyahay Arbacada waa furayaan. kii hore sida ugu dhaqsaha badan Soomaaliya kana isna ka daba hadla wuxuu maalinta Arbacada marinbiyoodku waa la furaa, sheekada waa dhammaatay. waa kaas shidaalkii marka lala dagaalamayaa inuu soo dhacaan rabaa. ma hor shidaalku sii qaaliyoobo, Mareykankii waa kacayaan, shidaalkii ku qaaliyoobay, adduunyada dhan qaaliyoobayso, wixii oo dhan waa lala dagaalamayaa. marka mala awaal iyo riwaayada la isu sheegayaa, marka adduunka oo dhan la qaldayaa. ilaa arrinkaa faahna waaye. haddaba markaan idintuso wargeyska le ra'yi loo muxuu leeyahay wasiirka al-khazana ninka la yidhahdo, macnaha wasiirka maaliyadda oo kale Mareykanka ninka u fadhiya, ayaa wuxuu rajaynayaa heshiis ay la gaarayaan Iiraan maalinta Arbacada ah oo dib loo furi doono marinbiyoodka Hormuz. haddaba arrinkanna wuxuu qayb ka noqon doonaa inuu deganaanshiyo ku sameeyo sicirka batroolka iyo daaqada caalamka. ascaaru daaqa la yidhahdaa. mujeedaa sheekadii hadday soo baxday. sheekadii waxaa leeyahay arrintan waxay caawini doontaa sicirka inuu soo dego
إلا وحبان ودلدلاي نكي ترام يكوحدي سوحلو له waxay la dagaalamayaan in shidaalku qaaliyo Iiraan la heshiina Iiraan waa dhamaysanay hawsha waa la furayaa barito waxa soo dhan filin waa lagu leeyahay wallahi way abay siyaasaddu waa wax munaafaqnimo ah waay oo yaab la waay marka waxa sidoo kale warbixin kooban iyana diyaarisay telefishinka Al Jazeera ayaa war kooban ka diyaariyay waxay leeyihiin nimanka Mareykanka warkooda waa la furayaa ma la furayo waxaas waa hawl kale laakiin anagu waxaan ogaanay khilaaf weyn inuu ka jiro Hormuz af aan lagu furi karin waa la furaa bari basaadan baa la furay shidaalkii yuusan nagu kicin waxaas wasiirka hebel ha hadlo wasiirka la ha hadlo Trump ha hadlo waxaas adduun lagu raacayeen waxa sheekadaas waa sheekadeen Al Jazeera waxay taagantay khilaaf weyn meesha ka jira wax ciyaar ku furmaayana ma hadaba khilaafku marka muxuu yahay aanida tuso wararkii ugu weynaa khilaafaad ay leedahay Jazeera ayaa hareeyay heshiis laga gaari lahaa barbiyoodka Hormuz hadaba warbixintan waxa laga soo xigtay journalka Mareykanka ee yiraahdo Wall Street Journal wuxuu leeyahay mas'uuliyiin gobolka iyo kuwa Mareykan ayaa xaqiijiyay in markaasi Iiraan ay diiday dalabka ah inay joojiso canshuur inay ka qaado maraakiibta halka maraysa hadaba waxay soo kale Iiraan diiday inay damaanad qaado inay joojiyaan weerarada ay awlaadeeda ku qaadayaan qaar kamida gobolka qaybo kamida hadaba waxa la sheegay in ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay sheegeen in arinkaasu aanay waxba ka qabanayn oo macnaha ma ogolaanaynin mawjada journalka Wall Street Journal iyo warbaahintii waxay leeyihiin nimankan Trump iyo kooxdiisa iska hadlayeen meel iska dhigtaan meesha khilaaf weyn jira Iiraan laba arin la weydiiyo waa diideen canshuurha qaadina leeyahay ma qaadaytin canshuur hadana qaadin waa xirnaanay meesha kiis homar nagta ka saara dawladii gobolka way dacwaa waxay yiraahdeen awlaadada naga cish xootigan iyo nimankan kale maaratay Ciraaq jooga iyo waxaan iyo nagala hadal ma la hadlaynaa adeegooda iyo shaqadooda wataan marka maxaa lagu furay taagin warbaahintii waxay khilaafsan tahay warka madaxda Mareykanka meeshan reality-ga ama waxa dhabta ee yaala miiska waa waxaan leeyahay nimankaas ka hadlay arbaca la furay hadda la furay waxaas wax ka jira maleedeen sheekaas marka Hormuz warkeedii waay warka ugu dambeeya oo ugu muhiimsan maanta wuxuu yahay nimankii xuutiga ahaa waxay yiraahdeen mid kamida eraboorada ugu muhiimsan Sacuudiga ayaynu dakum ka dhigin waliba eraboorka waa weyn yahay meel xasaasi ah aan ku dhufanay taagi oo arrimo muhiim ka socdeen Sacuudiga imtixaanays Sacuudi maca waxaan isugu taabatay ka baraysaa hadaba markaan tuso goordho warbixintan waxa daabacday jiradda leeyahay Ra'yul Yawm waxay leedahay jamaacada Ansaarullah ee Xuutiyiinta dalka Yemen waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen goob xasaasi ah oo ku taalay eraboorka leeyahay Najran ee ku yaala koonfurta Saudi Arabia waxaana lagu weeraray diyaarado drone waxaana la sheegay in siday tahay dakum looga dhigay macnaha bishaklin daqiiq siday tahay loo garaacay lama gafinba meeshii loogu talagalay ayaynu ku hubsanay dheen hadaba afayeenka u hadlay kooxda Ansaarullah ee Xuutiyiinta dalka Yemen Yahya Sariic ayaa wuxuu sheegay in kooxda weerarkeeda uu u suura galay goob muhiim ah oo uu ku tilmaamay in cadawga Sacuudigu ay wax ku mareegayeen eraboorka Najran ay la heleen oo ay ku qarxiyeen diyaarado drone waxaana la sheegay halka inay ka dhasheen isaaba ama dhaawac inuu halka weyn ka dhashay iyadoo aan wax faahfaahina laga soo saarin oo dawladda Sacuudiguna aanay ka hadlin way marka waa arkaysan nimankii xuutiga ahaa waxay taagan yihiin eraboorka Najran meel hadaf xasaasi ah oo muhiim ah ayaynu qaramsanay oo aan dakum ka dhignay leeyin ma
sacuudigii war lagama hayo afkaa juqda qabay maqli jirin waxa faysteenaya oo twitterka maasha x ku soo qoraya waa xuutiga afayeenkooda Yaxya Sariic marka warkan marka waxa qaybta hoose ku qoran sababta aan u weerarnay waxa waaye diyaarado drones sacuudigu leeyahay ayaa soo ataagay qaybo kamid ah waqooyiga Yemen gaar ahaan dhulka la yiraahdo Sacda meesha la yiraahdo meelahaas ay soo galeen sidee dhulkeena u soo gali karaan oo annaga noo soo aadi karaan war cadaaday meeshaas ayaa xaajadu maraysa wararkaas ayaa ugu waaweynaa asxaabay barnaamijkeeda labaad maanta oo talaadaan idin soo gudbanaynay inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan asxaabay waxaan idinkaga tegayaa like gareeyo share gareeyo barnaamijka